بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan maanta oo ay tahay 11 bishii 12 2019 maalintii habeenkii ugu dambeeyay ee sanadka 2019 ama 2019 waxaan rabaa inaan si hordhac aan uga yara warramo warmurtiyeed aan soo saari doono sanadka cusub maalmaha hore ama bisha kowdeeda ama labadeeda insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxay u badan tahay berriba adigu kowda bishaba fiidka hore inaan soo saarno waxa aan anigoo ku hadlaya afka shacabka geeska Afrika guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan qowmiyadda aan madaxda u ahay aan gudoomiyaha siyaasadda u ahay waxaan rabaa inaan u soo bandhigo haddii alla yidhaahdo waxqabadkii sanadihii lasoo dhaafay wixii aan qabannay iyo howlaha noo dhiman sanadkii iminka ugu dambeeyey oo ahaa labadii sane ugu dambeeyey oo ahaa labadii sane ugu hawsha adkaa iyo sanadihii ka horreeyey oo ilaa iyo 9 sannadood oo ka horreeya waxyaabihii guud ahaan aan qabannay waxaa kaloo aan rabaa inaan fariin u diro dhammaan qurba joogta direed ee ku nool 5 qaaradood khaasatan North America iyo Yurub waddamada khaliijka waddamada East Africa ku yaalla oo dhan iyo Far Asia oo Malaysia iyo Indonesia iyo China iyo dadka meel kasta iminka ka dhaceen Hindiya iyo waddamo badan baa jira oo dadku ay aad u degan yihiin waxbarasho iyo shaqo iyo business bay u joogaan iyo qaaradda goonida ah ee Australia guud ahaan shacabka geeska Afrika meel kastay joogaan fariintayda caawa aan u soo dirayo waxa weeye waxaa socda abaabul dowladaysan oo qabyaaladaysan oo nidaamsan oo dhaqaalo badanna lagu bixinayo oo ka dhan ah dir guud ahaan gaar ahaan dirka Soomaaliya ku nool iyo Somaliland abaabulkaas waxaa wada oo qaab dowladeed uga wada Nairobi iyo Muqdisho iyo meelo kale oo fara badan oo aanan imika magacaabaynin siyaasiyiin Soomaaliyeed oo xilal qaran iyo xilal goboleed bahaya oo lacagtii dekedaha iyo cashuurta qaranka Soomaaliyeed ku bixinaya space politico in ay ku kala furfuraan Somaliland lagu burburiyo Djibouti lagu mashquuliyo maaragtay Somali state lagu kala gado dadka la isku diro guud ahaan dir oo dhan baa duulaan lagu yahay gaar ahaan dirka Soomaaliya ku nool iyo Somali state hawshaas waa hawl dad khubaro ah oo siyaasiyiin iyo dad odayaal oo dad minority Soomaaliya ka ah ay wadaan oo lagu maalgeliyo dhaqaale dowladeed lagu maalgeliyo waxaa laga dagaalamayaa dhinaca doorashooyinka waxaa laga dagaalamayaa dhinaca xildhibaanada waxaa laga dagaalamayaa dhinaca maamul goboleedyada inaanay awood badan ku yeelan waxaa laga dagaalamayaa in Somaliland iyo dirka kale ayna isku xirmin khaasatan Somaliland iyo Oromia waxaasoo dagaal ah baa ku socda guud ahaan qowmiyadda direed waxaan ugu baaqayaa marka guud ahaan dir meel kastay joogaan dhawaaqaygaas caawa aan idiin soo jeediyey inaad si fiican u dhagaysataan shirarkii aan hore u abaabulnay shirarka waaweyn baan soo wadnaa Somaliland baan isugu tagaynaa abaabul adag baa la gelayaa diyaar garow baa la gelayaa qof walba dhankiisa inuu ka qabto